magaalada Boorama ee caasimada gobolka Awdal ayaa waxa maanta gaadiidka kala duwan ee Boorama loo sameeyay nidaam ay wadooyinka ku kala mari doonaan nidaamkaas ayaa wax weyn ka bedeli doona saxmadda gaadiidka magaalada Boorama oo waayadii ugu dambeysay si aad isku soo taraysay Asleebaan Xasan Xaddi duqa magaalada Boorama ayaa waxa uu dadweynaha iyo sidoo kale gaadiidleydaba faray inay sharciga u hoggaansamaan maayarka ayaa waxa uu ka hadlayay sida ay u socoto hawsha loo kala nidaaminayo gaadiidka magaalada Boorama si saxmadda loo yareeyo ayaa isagoo amuurtaasi tafaasiil dheeraad ka bixinaya wuxuu yiri halkan waxaan maanta bulshada uga sheegaynaa haduu Ilaahay dhaahdo magaaladii maadaama ay caasimadii labaad ee Soomaaliland tahay kororkii dadka iyo gaadiidkuba aad bay u bateen saxmad bay noqotay waxaan markaa u sameeynay in iyo out magaalada ciidanka hawlgalka wadooyinku nala jooga taliyahoogii waxaan dadka u sheegaynaa in sharciga u hoggaansamaan gaadhiga ka hor yimaada gaadhi maraya wadadii loo sharciyeeyay soo mara wado aanan sharci ahayn oo laga xayiray waxa dib u geysto waxa le qofka khaladka ku socday baa iska leh wadada aanan loogu talagelin laga xidhay maraya baa iska leh wixii khaladka ka yimaada marka si aan la isku horiman oo gawaaridu u kala fududaato waxa la doonayaa wadooyinka leedina asteeyay in la sameeyay in la maro haduu Ilaahay dhaahdo waxa weeyaan fooqa telesom wadada hormartay Sabar Road waxa laga soo wareegayaa ilaa Umar Sugar ilaa Maanaga South baa laga soo wareegayaa wadada kulmiye hotel hormaraysa ilaa Harawa korba u baxaysa waa out iyaduna marka waxa weeyii isku adeega magaalada soo ayna xaafadaha gudaheegu waa caadi laakiin wadada baan la arki karin wixii hoos loo ayna fasaxayna inaan kor loo soo mari karin wixii kor loogu fasaxayna inaan hoos loo soo mari karin waxa weeye horta bajaaj marka la yiraahdo in iyo out markaan u sameeyay gaadiidka waxa la doonayaa inaan A iyo B u sameeyna haduu Ilaahay dhaahdo in shirkadooda iyo iskaashatooyinkooduna aan iswaafajino waxaanan qorshahanba waxa keenay gaadiidka xaafadaha u kala baxay ciriiriga keenaya kuwaasaan ugu talagalnay markaa inaan manage garayno oo kala fudayna haduu Ilaahay dhaawaan kullayaan shirkan jaraa'id waxaan u qabanaanay maayirku labada wada ciriiriga ah ee meel kala maro la waayay in wadada kulmiye Harawana loo maro kor oo xagga dhigta loo maro wadada telesom agmartana hoos loo maro si uu fududaado ciriirigu marka dadweynaha waxaan hawada u marinaynaa waxa wax la idinka xumeynay ma jirta idinka wax la idin hagaajinaya waxa la ii sheegay nameer oo bijaaj oo imika meelaha warwareegay oo mudaharaadina leh waa idinka wax la idin hagaajinaya idinka samxadii la idinka fududeynaya labadeena wado inta isku jiraan waad aragteen laba talaabo isku jiraan waxa weeyaan kama badna 30 mitir kama badna 30 mitir haddaad u qaadataan wax kale waa mushkilad weey oo dadka ay diidaan calaamadaha lagu taagayana eegta hadii Ilaahay raado wadada haddaad martiyo tan haddaad marto waa isla mid laakiin waxa fudaydka gaadiidka iyo samxadda ayaa looga jeedaa magaaladani waa caasimad intaasoo boqol oo gaadiid maraysa si loo kala fududaado qorshaha maayirka uu sheegay yaan anaguna ku shidaba taagan oo ku shaqaynayna waa nuuxkadii magaalada Boorama